iyadoo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo hore u cilaamiyay in 45 maalmoodba hal maalin lagu fuliyo guud ahaanba gobolada iyo degmooyinka Soomaaliland maalinta ololaha nadaafadda qaranka ayaa muddooyinkii u dambeeyayba u muuqatay mid si cagajiida loo xuso ama meesha ka baxday magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer ayaa maanta laga sameeyay olole nadaafadeed oo ballaaran kaas oo horkacayeen mas'uuliyiinta maamulka gobolka Togdheer iyo kuwa degmada Burco waxaana maanta ololaha nadaafadda si weyn uga dhex muuqday lamaha dawladda ee heer gobol sida wasaaradaha caafimaadka waxbarashada ciyaaraha shaqada iyo shaqaalaha beeraha iyo macdanta iyo biyaha iyo sidoo kale ciidamada militariga iyo ardayda ay ka mid yihiin bishacaas SYS iyo ardayda dugsiyada gobolka Togdheer dhinaca kalena ururada bulshada oo ka mid yahay ururka Sahal Sayna oo ka mid ah ururada gobolka Togdheer ayaa iyaguna si weyn uga dhex muuqday ololaha nadaafadda ee maanta laga fulinayay magaalada Burco waxaa mid ka mid ah goobaha maanta ololaha nadaafadda hawshan laga fulinayay aanu kula kulanay mas'uuliyiinta maamulka gobolka iyo kuwa degmada Burco oo siyaabo kala duwan uga hadlay ololaha nadaafadda ee maanta ay ka fulinayaan gobolka Togdheer oo ballan qaadeen inay si joogto ah u fulin doonaan ololahan 45 maalmoodba kaas oo ay tirsan doonaan maayirka magaalada Burco Mr Maxamuud Axmed Xasan Dhagalaab ayaa isagu dhankiisa walaac weyn ka muujiyay xanuunada ka dhalan kara nadaafad darrada iyo bacda balastiga oo dhibaato xoogan ku haysa deegaanka isagoona baaq u diray ganacsatada iyo xukuumadda Soomaaliland inay qorshe ka gaadho sidii loo dabargoyn lahaa bacaasi afartii casho markaan tirsanay anagu maanta aanu samaysanay maadaama afartii guud ee dalka laga qaybiyay markuu muddo soconay uu istaagay anagu waxaanu go'aansanay in afartii sidiisii noogu socdo markii aanu tashanay haddii aanu nahay bulshada reer Togdheer maamul iyo shacabba waxa la go'aansaday in afartii sidiisii anagu aanu wadno maanta oo bisha 12 tahay ayay noqotay maalintii qorshuhu waxa dhiman qaybtii ugu faraha badnayd oo dadweynihii shacabka ahaa iyo ganacsatadii ninka ganacsatadii waa ninka ugu daran ee hortiisa soo dhigaya ee aan qaaday ee dariiqa ku daadinay soo xaaro hadday magaxaytay hadday dukaantay hadday baclo tahay waxaanu leenahay qof kasta oo dadweynaha baabuurka magaalada marta keeriyoonayaal mara dad baa ka shaqeeya qashka aad wadada ku daadinaysa kada ururi jawaan ku rid agtaada dhig gaarigu markuu marayo dhig barasaabka gobolka Togdheer Yaasiin Maxamed Cabdi ayaa isaguna shaaca ka qaaday in maalinta ololaha nadaafaddu ay tahay maalin weyn isla markaana la fulin doono gobolada dalka aan dadweynaha u sheegaynaa inay ka qayb qaataan waa si wacan oo hawlkarnimo oo waayeelnimo ololaha nadaafadda ee maanta ayaa isagu ka qabsoomay meelo kala duwan kuwaas oo lagu nadiifinayay meelaha inta badan uu qashinka buux dhaafiyay waxaana ka mid ah goobahaasi dugsiga Sheekh Cismaan Nuur isbitaalka guud ee Burco xaafadda Faarax Omar xerada militariga iyo qaybo kale oo badan oo magaalada Burco isudwaha wasaaradda caafimaadka ee gobolka Togdheer Cabdi Yaasiin Xaaji Saleebaan isudwaha wasaaradda qoyska ee gobolka Togdheer xogayaha fulinta ee dawladda hoose iyo qaar ka tirsan ururada bulshada rayidka ah ee gobolka Togdheer ayaa soo dhaweeyay ololaha nadaafadda kuna tilmaamay mid u baahan in la joogteeyo ololaha nadaafadda ay horkacayeen mas'uuliyiinta gobolka Togdheer iyo kuwa degmada Burco ayaa hadii la sii wado wax weyn ka bedeli doona bilicda magaalada Burco Cabsaaq Faarax Cabdilaahi Cabsaaq Nakruma shabakada caalamiga ah ee Burco online magaalada Burco